alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii alwasaa'il mufiida lilxayaati saciida waxaynu ka qaadaynaa in sha allahu tacala qodobka sagaalaad ee sheikhu sheegay sheikhu waxa uhi raximah llah wa min anfaci ma yakunu fi mulaaxadati mustaqbali اlumuuri isticmaalu hada adducaaءi aladi kana anabiyu sala allahu aleyh wasalam yadcuu bih wuxuu ka hadlayay sheikhu waxyaalaha asbaabaha ee keensanaya nolosha wanaagsan ee farxadda iyo rayraynta ku jirto oo murugada iyo markaa waxa weeye walbahaarka iyo warwarka ka maran marka asbaabaha keensanaya waxaa ka mid a waxyaalaha ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan waxaa ka mid a waxa markaa dhacaya umuuraha mustaqbalka ah ee soo socda in la milicsanaayo xaggooda waxyaalaha ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan inay keensadaan nolosha wanaagsane farxadda leh waxa weeyaan isticmaalu hada ducaa ducadan in la isticmaalo oo ducadan ilaahay lagu baryo alladii kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yadcuu bih ducadan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray allahuma aslix lii diinii alladii huwa cismatu amri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray ilaahayow ii hagaaji diinii diinkayga ii hagaaji alladii huwa cismatu amri diinkaasoo umuurahayga ka ilaalinaya dhowraya ah oo umuurahayga ii xafidaya hadduu diinku ku hagaago waxliba insha allah waa ku hagaagayaan wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi ii hagaaji oo ii islaaxi adduunyadayda allatii fiiha macaashi taasoo uu ku sugan yahay macaashkaygu iyo waxaan markaa ku noolaanaya wa aslix lii aakhiratii allatii ilayha macaadii ilaahay u ii hagaaji aakhiradayda taasoo xaggeeda aan u noqonayo noqodkaygu ahaaday wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr waxaad ka yeeshaan nolosha mid dheeraad ii leh yacnii ay ii siyaadinayso igu kordhayaan khayr kastaaba oo intaan noolahay mar walba khayr ii kordhaayo ka yeel waalmowta raaxatan lii min kulli shar geeridana waxaad ka yeeshaa mid raaxa iiga ah oo aan kaga markaa raysto oo kaga raaxaysto oo aan kaga nasto shar kastaba bimacnaa ducadani waa ducaa markaa jaamica oo kulminaysa khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba kulminaysa yacnii gees kasta oo qofka markaa khusaysaba ducadu way ku saabsantahay xagga diinta xagga adduunyada xagga aakhirada xagga nolosha xagga geerida waa 5 arrin qofku waxa uu haysto waxa ugu weyn diinka ayaa ugu weyn marka allah wuxuu ka baryey oo dadka markaa waxa uu nebigu tusay oo u jideeyey si ay ilaahay uga baryaan inuu ilaahay diinkiisa uu ilaahay u islaaxiyo u hagaajiyo waa inuu shakhsigu ilaahay weydiistaa ilaahay nebiga waa u islaaxiyey waa u hagaajiyey ducadana ilaahay buu ku caabudayaa khayrka inuu usii kordhiyana ilaahay buu ka baryayaa ummadda islaamkaana wuxuu u sharciyeynayaa inay ducadan ku ducaystaan oo waa baris uu baraayo inay ducadan ku ducaystaan khayrkay leedahay daraaddeed marka kow wuxuu ku ducaystay in ilaahay diinka u islaaxiyo u hagaajiyo kaasoo umuurahoo dhan yacni ka dhowraya ee ugu muhiimsan ah musiibada diinka ku dhacdaana waa musiibatulmasaa'ib waa musiibadii musiibooyinkaba waa musiibadii ugu weynayd weeye walaa tajcal musiibatana fii diinina waa tii duco kale ay ku soo aroortay ilah waa ka yeelin musiibadayadu mid markaa xagga diinka naga haleeshaha ka yeelin yacni musiibada mid diinta nagaga dhacda ilah waa ka dhigin shayga labaad wuxuu nebigu ku ducaystay inuu markaa adduunyada u islaaxiyo waxa uu ku nool yahay ay ku sugan tahay iyadana islaax buu ilaahay ka baryey inuu u hagaajiyo u wanaajiyo islaaxina waxaa ka mid a xalaasha in la waafajiyo xaaraanta laga ilaaliyo xalaasha in loo barakeeyo qanaaca in lagu siiyo wuxuu kaloo ilaahay ka baryey inuu aakhirada ilaahay u islaaxiyo aakhiradaasoo iyadoo xaggeeda loo noqonayo wuxuu kaloo ilaahay ka baryey nebigu calayhi salaatu wasalaam in ilaahay ka yeelo nolosha inta uu nool yahay mar walba mid khayr u kordhayo oo uu khayr siyaadsanayo yacni qofku meel ma taagnaado ama hoos buu u socdaa ama sare u socdaa yacni ama khayr iyo wanaag buu korarsanayaa ama hoos buu u socdaayo waxbaa ka dhacaya marka dee sida fiican waa in noloshii uu qofku noolaa khayr waa inay u kordhisaa fiican inuu hoos u socdo oo shar u kordho khayrkiina ka yaraado nuqsaan uu u dhaco tan noocaasi waxa weeye markaa mid fiican maaha allahuma inna nacuudu bika min alxawri bacda alkawr
ama bilafdin aakhar allahuma ina nacuudu bika min alxawri bacda alkown yani ilaah waxaan kaa magan gallay yani dib u noqosho aanu dib u noqonno markii waxa weeye aanu markaa ziyaado gaadhnay dabadeed ama markaanu xaalad sare ku sugnaannay inaanu hoos u noqonnaanu kaa magan gallay marka noloshii waa inuu markaa qofkii khayr u kordhaan taasna waa ku ducaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkuu tusaayey inay ku ducaystaan oo u sharciyeynayey oo barayey yani isaguna ilaahay buu ku caabudayey khayrka inuu allah u kordhiyana waa ka baryey waayo kamaalkii kamaal buu aqbalaa siyaadadii khayrka loo kordhisanaya mar walba waa sii kordhi kartaa wuxuu kaloo ilaahay ka baryey inuu geerida uga yeelo miduu shar oo dhan kaga raaxaysanayo oo wixii shara uu kaga badbaadaya geeridii waa tii ay ku soo aroortay waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuun haddaad addoommada fitno la doonto ilaahay ow anigaan fitnaysnayn i oofso waxaa loo jeedaan fitno aanoo ka maran aan fitna igu dhicin ilaahuw i oofso oo nafta iga qabo ayaa loo jeedaa laakiin ma aha markaa waxa duca geerida lagu ducaysanayo laakiin goortay doontaba ha noqotee yani goortaad i oofsanayso aanoo ka maran fitno i oofso oo markaa macnuhu u dhacaya waxay la mid tahay tawafanii musliman saasoo kale ay shabbahaysaa ducadaa nebigu waa ku ducaysan jiray duca labaad wakadalika qowluh waxaa kaloo saasoo kale ah ducadiisii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray allaahumma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn wa aslix lii sha'nii kullahu laa ilaaha ilaa ant nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ku ducaysan jiray inuu yidhaahdo allaahumma raxmataka arjuu allahow naxariistaada ayaan rajaynayaa naxariistaadoo quraan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsii naftayda hay xil saarin oo ha igu eegin tarfata cayn yacni inta isha la isku qabanayo ama la kala qaadayo qadarka ilbidhiqsiga ah yani naftayda ha igu eegin oo ha i dayn ee icaanadaada iyo kaalmadaada iyo gargaarkaaga ilaahayow mar walba i kaalmee oo i caawi wa aslix lii sha'nii kullah ilaah umuurahaygoo dhan iyo shanigaygoo dhanna ii hagaaji umuurahaygoo dhan ii hagaaji kulligood hadday markaa diin tahay hadday adduunyo tahay hadday aakhiro tahay hadday axwaashaydoo dhan tahay laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane ducadaas iyaduna waxay ahayd ducooyinka wakhtiga kurbada lagu ducaysto oo dhibaatada qofku markuu dareemaayo inuu ku ducaysto ayaa markaa fiican waana soo aroortay axaadiista qaarkood inay tilmaamayso wakhtiga kurbada in lagu ducaysanayo xadiis wuxuu sheegayaa dacawaatu lmakruubi allaahumma raxmataka arjuu markaasuu xadiiska sheegaya qofka dhibaataysan ee kurbaysan ducooyinka uu ku ducaysanayaa waa inuu yidhaahdo allaahumma raxmataka arjuu alxadiis xadiiska dhammaystir marka taasna waxa weeye waa sidaas weeye marka ducaduna waxa weeye nafcigeedu waa weyn yahay xadiis waxaa ku soo aroortay laa yaruddu alqadaa ila adducaa qadaaga ma baajiyo wixii la qadaray ducada mooyaane wax kale ma baajiyaan yacni ducadunbaa baajinaysa yacni qadarkii kama baxsanaa ducada lafteedu oo waxay ka mid tahay ducadu qadarkay ka mid tahay macnuhu wuxuu u dhacayaa waa qadarkii oo la isku daafacayo oo qaarkiiba qaarka kale laga horgeynayo oo qadarka qaarkiiba qaar kale waa lagu daafacaa sida cumar ibnu khataabba lahaa nafiru min qadari illahi ilaa qadari illaah qadarka allah baanu ka cararaynaa qadarka allah baanan u cararaynaa yani meel kale tegi mayno yani wax kastoo dhacaya maadaama ay qadar yihiin waxay noqonaysaa in waxa markaa la nacayo marka laga cararayo qadar ilaahay iyadoo laga cararayo ayaa haddana ka loo cararaya wuxuu yahay un qadarkii ilaahay oo qofku inuu xanuunsadaa waa qadar ilaahay inuu isdaweeyana waa qadar ilaahay marka qadarkii baa qadar lagu daafacaya hadday gaajo ku dhacdo inuu gaajooda waa qadar ilaahay hadduu wax cunana inuu wax cunaa qadar ilaahay bay ahayd hadduu haraadaa waa qadar ilaahay hadduu haraaday qadar ilahay buu ku haraaday hadduu biyo cabbayna qadar ilahay buu ku cabbay macnaheedu waxay tahay qadarkii ilaahay baa qadarkii ilaahay lagu daafacayo yudfacu bacduhu bibacd gaala hadday marka waxa weeye markaa dullaysato muslimiin wuxuu ku dhacay qadar ilaahay hadday iska dhiciyaan oo iska ridaan oo la dagaalamaan oo la jihaadaanna waxay sameeyeen waa qadar ilaahay marka qadarullahi yudfacu bacduhu bibacd qadarka ilaahay qaarkiiba qaar kale waa lagu daafacaa marka ducadii qadar ilahay bay ku dhacaysa maxaana laga horgeynayaa qadarkii ilaahay
shaygu ilaahay qadaray ee la karaahiyeysanayey waxaa laga horgeynayaa shay ilaahay jecel yahay oo haddana qadar ilahay ku dhacay yudfacu bacduhu bibacd. cumar ibnu khadaab muxuu yihi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah. nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ruqyooyinkaan isku tufayno iyo markaa waxa dawooyinkaan isku dawaynaynaa ataruddu min qadar illaah, qadarka ilahay miyay celinaysaa? wuxuu yidhi hiya min qadar illah, qadarka ilahay bay ka mid tahy, qadarka ilaahay bay ka mid tahy. marka waxa weeye ducadu iyadoo qadarkii ka mid a haddana waxa weeye qadarka waa dhacdaa in qayb ka mida qayb kale lagu daafaco. sidaas aawoodee xadiiskan laa yaruddu alqadaa ila adducaa sheekh albaani waa quweynaya. marka nabiga waxaa laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam qadarka ma celiyo duca mooyaane wax kale. waana inaga sheegnay iyada lafteedu inay ka mid tahay qadarka ka mid tahay oo qadarkii la isku daafacaya ay tahay qaarkiiba qaarka kale. ducooyinka kale wakhtiga kurbada soo arooray iyo murugada in lagu ducaysto waa soo gelaysaa, sida marka waxa weeye xadiiska sheegaya ducaau lmakruubi an yaquula, qofka kurbaysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim, ama kaana yaquulu cinda alkarbi. wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiga dhibaatada iyo kurbada laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim. waa ducaau lmakruub, wakhtiga kurbada in lagu ducaysto waxay ka mid tahay ducooyinka wakhtigan oo kale lagu ducaysanaya ka mid tahay. oo qofku hadduu markaa kurbadii iyo hammigii iyo hammigii ku sugan yahay ducooyinkaasu ku ducaysanaya. wakada ducada kale hammigii iyo xusniga ku soo aroortay, warwarka iyo markaa waxa murugada, waxa uu sheegayey in la odhanaayo allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiyi xukmuka cadlun fiyi qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fi cilmi alghaybi cindak an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xuznii wa dahaaba hammii. nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ducada qofka hadduu ku ducaysto in hammiga iyo murugada iyo markaa waxa weeye warwarkaba in laga kaxaynayo ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo la mida inta aanay ku dhicin yacni murugada iyo markaa waxa weeye warwarkuba aanu ku dhicinna inuu ducaysto waa soo aroortay iyo markay ku dhacdo mid walba. marka allahuma inii acuudu bika min alhami walxasani walcajzi walkasali walbukhli waljubni wadilaci iddayni waghalabati rijaal. mawdici shaahid waxaynu ujeednaa inuu nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min alhami walxasan, ilah waxaan kaa magan galay hamiga iyo murugadaan kaa magan galay, walcajzi walkasal walbukhli waljubni intaaba waa kaa magan galay iga magan geli. faida lahaja alcabdu, sheikhu haddaba waxau ihi raximah llah, faida lahaja alcabdu bihada adducaa, markuu qofku markaa waxaweyan yani ducadan ku celceliyo alladii fiihi salaaxu mustaqbalih, kaasoo uu ku sugan yahay wakhtigiisa soo socdaa inuu hagaago, addiiniyi ka diinta loo nisbeeyey iyo wadunyawiyi ka adduunyada loo nisbeeyey, biqalbin xaadirin, uuna ugu celceliyo qalbi joogo aan maqnayn, wa niyatin saadiqatin iyo niyo dhab ah oo run sheegaysa, maca ijtihaadihi fii ma yuxaqiqu dalik, iyadoo lala qabo waxa arrinkaa xaqiijinayana inuu la yimaado oo ku dadaalo. xaqaqa allaahu lahu maa dacaahu, ilaahay waa u xaqiijiyaayo waa u dhabeeyaa wuxuu ku ducaystay, wa rajaahu uuna rajeeyey, ilaahay waa u dhabeeyaa dhab buu ka yeelaa, wa camila lahu aawadiina u shaqeeyey oo u camal falay, yacni ilaahay dhab buu ka dhigaa. wainqalaba hamuhu faraxan wa suruura, wuxuu isu beddelaa hamigiisu farxad ayuu isu beddelaa, wa suruuran ayuu isu beddelaa, yacni farax iyo marka waxa weeye way isku dhow yihiin, suruurka iyo faraxu waa isla macne, marka ayuu ilaahay ugu beddelaa. marka qaybtan wuxuu inoo sheegay in ducada aad loogu dadaalo ayuu inoo tilmaamay. faslun, qodobka tobnaad wuxuu yidhi wa min anfaci alasbaabi, sababaha waxyaalaha ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan waxaa ka mid a lizawaali alqalaqi waalhumuumi, yacni warwarku inay qofka ka tago, iyo walhumuumi hamiyadu inay ka tagaan uu haminayo. asbaabaha keensanaya waxaa ugu waxtar badan idaa xasala cala alcabdi, hadduu addoonka ku dhaco min annakabaati, dhibaatooyin ay ku dhacaan, nakbadu waa dhibaatada, dhibaatooyin ay ku dhacaan, an yascaa fii takhfiifihaa, inuu ku dadaalo siduu u khafiifin lahaa, u fudaydin lahaa ku dadaalo. wuxuu ugu khafiifinayaa bian yuqadira, inuu markaa qadaro ka soo qaado aswa alixtimaalaat, ashyaada suuragalka ah
ee dhici kari lahaa waxa ugu xun inuu marka hore ka soo qaado ashyaada markaa suuragalka dhici kari lahaa waxa ugu xun inuu qadaro ka soo qaado allatii yantahi ilayha alamru taasoo arrinku ku dhammaan karo wa yuwatina calaa dalika nafsah una taa naftiisa marka waxaan ku sugo taa naftiisa uu ku sugo fa idaa facala dalika markuu sidaas sameeyo falyasca ha ku dadaalo ha u rooro ilaa takhfiifi maa kii inuu fudaydiyo yumkinu takhfiifuhu ay suuragal tahay inuu fudaydiyo bixasabi alimkaani inta suuragalka ah fa bihada tawtiini yacni ku sugista uu taa ku sugaayo oo uu meel markaa yacni uu ka dhiganayo oo kale uu ku sugan yahay yacni waddan oo kale uu ka dhiganayo wa bihada asacyi iyo dadaalkaa uu la imanayo sababtiisa annaafici wax taraya tazuulu humuumuhu wa ghumuumuhu waxaa ka tegaya hamiyadiisa iyo warwarradiisaa ka tegaya wa ghumuumuhu iyo murugooyinkiisaa ka tegaya wa yakuunu badela daalika waxaa noqonaya taa beddelkeeda oo uu ku beddelayaa wa yakuunu badela daalika alsacyu fii jalbi almanaafic inuu ku dadaalo u rooro waxyaalaha wax taraya inuu soo jiito wa fii dafci almadaari almaysuurati lilcabdi iyo inuu ku dadaalo dhibaatooyinka inuu riixo oo daafaco baajiyo almaysuurati uu awoodi karo ee loo fudaydiyey lilcabdi addoonka macnaha wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha dhibaatooyinka fudaydinaya waxaa ka mid ah inuu ka soo qaado waxa suuragalkaa ta ugu xun masalanoo kale hadday dhibaata ku dhacdo inuu isyahaa dhibtan niyo waxaaba suuroobi kari lahayd si ka daran inay kugu dhacdo ka soo qaad gaadhi baa la dhacay wuxuu ka jabay markaysa wax gacan markaasuu wuxuu ka soo qaadayaa haddii jabitaanku intaa ka badnaan lahaayoo dhowr meelood uu ka jabi lahaa ama lafta adhaxda ka jabi lahaa ama intaasoo meeloodoo kala duwan uu ka jabi lahaa inay ka xumaan lahayd hadduu intuu gaadhigu la dhaco markaysa markaa uu ku dhinto ama markaa waxaweyan uu noqdo baralaati uu noqdo qof markaa hadhow yacni isagii aan shaqaysan karin aan isqaadi karin oo baaralaysa inay suuroobi kari lahayd dee ilaahay markuu ka fudaydiyey oo uga dhigay gacan jabtay oo dee gacantii waa ka socon karaa wax waa qabsan karaa hawlihiisii waa maamulan karaa yacni waxa weeye inuu musiibadii ilaahay u sahlay buu arkayaa marka waxuu odhanaya alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaah ii yasiraya intaa iga dhigay aan wax ka weyn ka dhigin ayaa mahad leh wuxuu qadaraya ka soo qaadayaa inay suuroobi kari lahayd musiibadu intaa inay ka weynaato marka dee waxa weeye inay hadda khafiif tahay marka intaa loo eego ila bacdu shari ahwanu min bacd sharka qaarkiiba qaarka kale waa ka fudud yahay hadda maaragta hadduu lug ka jabi lahaa ma socon kareen dee gacanta inuu ka jabo waa ka daranta maaragta hadduu lugta marka waxa weye meelaha qaarkood oo khatara ka jabi lahaa waa ka sii darnaan lahayd hadduu dhabarka ka jabi lahaa waa ka darnaan lahayd hadduu dhowr jabitaan ku dhici lahaa waa ka darnaan lahayd ya haddii xangulluhu wax noqon lahaa intuu dhabarka markaysa markaa ka jabo dee waxa weye waa ka darnaan lahayd xaaladdu marka sidaas aawadeed ixtimaalka ugu xun ee suuragalka abuu marka hore yacni qadaraya ka soo qaadaya dabeedna wuxuu eegayaa xaaladdu ku sugan yahay inay ka sahlan tahay markuu sidaas sameeyo ayuu intuu fudaydin karo haddaba arrinka fudaydinaya markaasoo intanna waxba maaha wuxuuna ku dadaalayaa intuu markaa wixii suuragale uu samayn karo inuu wixii manaaficee waxtara soo jiito wixii dhibaatooyina iska daafaco ya war nicmo ilahay baan ku sugnaa waaba sahal intanba dad waxay qabaan miyaad arag sacyiga uu ku fudaydinayo waxa anfacaya inuu soo jiido waxa markaa dhibayana inuu iska daafaco waxaa ka mida hadduu dee markaa meeshii ay daaweyn u baahan tahay ama markaa kabis u baahan tahay ama wax la mida waa isku dayayaa inuu markaa ku dadaalo ilahayna waa baryayaa baryadu waxay ka mid tahay sacyiga lagu dadaalayo ee wixii anfacayey ayay ka mid tahay fa idaa xallat bihi asbaabu alkhawf markay ku soo degto isaga sababaha cabsida keensanaysa markay ku soo degto waa asbaabu alasqaam iyo xanuunnada sababahoodu markay ku soo degaan isaga waa asbaabu alfaqri iyo caydhnimada sababaheedu markay ku soo degaan waxyaalaha keensanaya iyo walcadami xoolowaaga u xoolo waayo yani noocyadii dhibaatooyinku tirinaya wax ka mida tusaale ahaan uu waayo limaa yuxibuhu wuxuu jecel yahay uu waayo oo min almaxbuubaati waxyaalaha la jecel yahay ka mid ee almutanawicati kala duwan
waxyaalaha la jecel yahay ee la waayayo waxa soo gelaya xoolihii, waxa soo gelaya ubadkii, waxa soo gelaya ciduu jecel yahay inuu waayo, inay ka dhimato, inuu markaysa markaa mafquudba noqdo oo markaysa markaa intuu tago meel alla meel laga warramo la waayo ayaa markaa soo gelaya. waxa soo gelaya markaa oori uu jeclaayo markaysa markaa waxaan yani diido oo ka cararta. yani kullu daalika waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa waxaan yani wanaagsan ee uu doonayo, ee uu jecel yahay uu doonayo ee uu waayey. falyatalaqa dalika bitum'aniinatin wa tawtiini linnafsi calayha, ha kula kulmo arrinkaas xasillooni u xasiloonaado iyo wa tawtiinin linnafsi naftii inuu sugo calayha shaygaa ku sugo. bal calaa ashaddi maa wuxuu markaa ku sugayaa kii waxa ugu daran oo yumkinu minhaa suuragalka ah ayuu ku sugayaa. war waa sahal buu odhanaya intani yaa wax ka daran inay ka yimaadaan ayuu mid walba qiyaasi karaa mugta inay uga timaado. marka intan hadday noqoto keli ah waa wax lagu sabri karo, waa wax sahlan yaa iyadoo kasii darnaatay ka darnaan lahayd. fa ina tawtiina nafsi nafta in lagu sugo cala ixtimaali almakaarih, waxyaalaha la karaahiyeysanayo inay u dulqaadato u sabirto in nafta lagu sugaa, yuhawinuhaa waa jilcinayaayoo musiibadii uu ka dhigayaa shay hayinoo fudud ka dhigaya, waa fudaydinaya. wa yuziilu wuxuu kaxaynayaa shiddataha, dhibaatadii waxyaalaha makaarihdu ay lahaayeen ayuu tegsiinaya kaxaynaya. wa khusuusan idaa ashghala nafsahu bimudaafacatiha bixasabi maqduurih, waxaa markaa si gaara aan gaar yeelaynaa idaa ashghala nafsahu markuu naftiisa ku mashquuliyo bimudaafacatiha, difaaca ashyaada uu daafacayo oo uu riixayo, bixasabi maqduurihi kolba inta suuragalkiisu yahay. fayajtamicu fii xaqihi isaga nisbadiisa waxaa ku kulmaya tawtiinu nafsi, naftii inuu markaa sugo, maca sacyi naafici, lala qabo dadaal wax taraya lala qabo, alladii yashghalu can alihtimaami bilmasaa'ib, kaasoo ka mashquulinaya inuu ku hamiyo musiibooyinka. wayujaahidu nafsahu cala tajdiidi quwatihi almuqaawimati lilmakaarih, wuxuuna kula jihaadayaa naftiisa calaa tajdiidi quwatihi xooggiisii inuu cusboonaysiiyo, almuqaawimati ka hortegayey oo caabinayey, lilmakaarihi waxyaalaha la nacayo caabinayo ka hortegayey, maca ictimaadihi fii dalika cala allah, iyadoo lala qabo arrinkaana ilaahay inuu cuskanayo oo uu tala saaranayo, iyo wa xusni athiqati bihi, iyo kalsooni wanaagsan in allah lagu kalsoonaanayo lala qabo. walaa rayba ana lihadihi alumuuri faa'idataha alcudmaa, waxaan markaa shaki ku sugnayn in umuurahaas ay u sugan tahay faa'iidadeeda alcudmaa weynaanshaha badnayd inay ugu sugan tahay fii xusuuli suruuri wainshiraaxi suduur, yacni faraxyadu inay dhacaan oo la helo faraxi, iyo wainshiraaxi suduur laabuhu markaa inay yani waasic noqdaan oo aynay diiqadoon. qofku markuu farxo laabtiisu waasic bay noqonaysaa. marka waxa weeye uu murugoodo ama baqana laabtiisu waa cidhirtoomaysa. hadduu wax markaa adduunyada cid hadduu ka baqo ama makhluuqu ka baqo waa cidhirtoomaysaa laabtiisu. hadduu markaa murugoodana waa cidhirtoomaysa. marka laabtu inay waasic noqdo iyo farxaddii iyo noloshii wanaagsanayd baa isleh, maca maa yu'ammiluhu alcabdu min althawaabi alcaajili waalaajil, iyadoo lala qabo wuxuu addoonku diilaysanayo oo min athawaabi alcaajili, ajarsiinta iyo abaalmarinta soo degdegaysa ah, iyo walaajili ta dambaysaba ah. adduunyada markaa waxaa thawaab wanaagsan in lagu siiyo, yani si wanaagsan markaa wax wanaagsan lagu abaalmariyo, ilaahay markaa uu kurubaadka ka ilaaliyo, dhibaatooyinka ka ilaaliyo, kurubaadkii ka farajado, ducooyinka markuu ducaysto laga aqbalo, yani waxa weye masaa'ibkii iyo dhibaatooyinkii laga daafaco, waxyaalihii weynaanshaha badnaa. yani kullu daalika waxay noqonayaan thawaab alcaajil, waa thawaabka soo degdegaysa. oo dee qofkii waxyaaluhu la yimi waxaa dhici kartaa wax ka mida xasanaadkiisi in adduunyada lagu siiyo. wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi alaakhirati la min alsaalixiin. yani markuu nebi ibraahim ilaahay sheegayey ajarkiisii adduunyadaanu ku siinay, bimacnaa wax ka midaanu ku siinaa loo jeedaa waa thawaab alcaajil, aakhirana saalixiintu ka mid yahay. marka taasina waa thawaab alaajil, waa abaalmarinta dambayse ee yani aakhiro qofka lagu abaalmarinayo. yani taas weeye. wa hada mushaahadun mujarabun
kanna waa arrin la arkay oo mujarabun la tajribeeyey oo tajribe lagu ogaaday wa waqaa'icuhu miman jarrabahu kasiiratun jidda dhacdooyinkiisuna cidda markaa tijaabisay ee tajribaysay way fara badantao aad iyo aad bay u badantay khulaasada sheikhu inoo sheegaya waxay tahay masaa'ibka marka wax ku dhacaan oo dhibaato ku dhacdo qofkii waa inaanu is odhan waa tii ugu weyneyd wax kugu dhici kari lahaa waa inuu qiyaasaa siyaalo ka waaweyn inay dhici kari lahayd musiibadan in ugu dhacdo yacnii inta waxa weye ixtimaale ka suuragalka ah ayuu eegayaa markaasuu odhanayaa ilaaha markaa intaa igaga ekeeyey waa in naxariistay hadday sidan noqon lahayd yacni way ka darnaan lahayd hadday sidan kale u dhici lahayd way ka darnaan lahayd hadday sidan kale u dhici lahayd way ka darnaan lahayd inay siyaalaha u dhacdo ilaaha kaa badbaadiyo sidan kaaga dhigay yaa waxa weeye waa kuu roon yahay inay sidaas ku dhici weydo tani ku dhacdaa waxay noqonaysaa mid ka khafiifinaysa tii ku dhacday wuxuu u qaadanayaa markaa arkayaa tani inay sahal tahay oo musiibadu hadday sida kale u dhici lahayd way ka sii darnaan lahayd marka taasuu dabeedna waxa weye ilaahay ku mahadinaya inaanu sidaa ka yeelin ya tanna waxa weye marka wuxuu samaynayaa intuu khafiifin karo ayuu khafiifinaya intuu fudaydin karo ayuu fudaydinaya saxaabadii waxaa laynoo sheegay dagaalkii uxud markuu dhacay qaybtii hore dagaalka waxaa libaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta ayaa libaystay oo gacan sarreeyey gaaladu way jabeen qaybtii hore qayb waa laga laayey intii kalena waa carartay baqaha raacay iyaday caynkaa tahay ayuunbaa markaa waxa weeye muslimiintii qaarkood ikhtilaaf ku dhacay oo waxyaalaha qaar isku khilaafeen amarkii nebigana qaar baa khilaafay oo u qaatay dagaalkii inuu dhammaaday meeshii uu yidhi halkaa ha ka imanina dhabarjabin in lagu sameeyo qolyihii ka ilaalinayey baa iskhilaafay qaarkood waxay u qaateen badankoodii inuu dagaalkii dhammaaday dabeedna meeshii bay ka yimaadeen meeshii ayay ka yimaadeen bal si gaaladii waxa looga dila ay u eegaan si furkiina ay u ururiyaan markii caynkaasi dhacday baa mar labaad gaaladii soo rogaal celisayoo dhabarkay kaga yimaadeenoo koox meeshii ku hadhayna markiiba waa soo jiidheenbo dabeedna markaysa dhabarkay kaga dhufteen marka dagaalkii qaybtii dambe waa adkaaday waxaana dhacday muslimiintii waxaa laga laayey rag fara badan baa laga laayey rag fara badan ayaa laga laayey nebigana waaba la dhaawacay shaydaankuna waaba dhawaaqay oo waa qayliyey oo wuxuu yidhi maxamed la dil taana niyad jab baa ku dhacay muslimiinta qaarkood marka allah wuxuu yidhi id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faahaabakum ghamman bighammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum yani waxaa la sheegay xaaladdan yani iyadoo rasuulku halkii uu ku sugan yahay oo u dhawaaqayo inay markaysa marka muslimiin badani yaaceen oo ay marka waxaweye gaaladii yani waxaweye ay ka carareen oo qofna qof aanu markaa eegeyn yani koox yar baa nebiga ku soo hadhay waxaynu u jeednaa mawdicu shaahid fa asaabakum ghamman bighammin wuxuu allah idinku abaalmariyey hammi yani hammigana hammi kalea lagu abaalmariyey marka laba hammi baa meeshii dhacay labada marka waxa weeye murugo ee iska daba yimi ayaa waxay sababaysee la yidhi marka waxa murugada kale inay tagto fa ahaabakum ghamman bighammin mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdeen murugo waxay ka murugoonayeen yacni gaalada iyo jabka marka waxa ay gaadhsiiyeen iyo raggay laayeen iyo marka waxa waxyaalahaasi ka murugoonayeen murugo kalena waxay ka murugoonayeen yacni nebigii waa la dilayday maqleen taana waa ka murugoonayeen marka labadii murugo markay meeshii kulmeen waxaa ka imanaysay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum wuxuu idinku abaalmariyey si aydan uga murugoon wixii idinka tegey iyo wixii idin haleeletoonna marka murugadii hore murugada dambaaba ka weynaatay oo dee nebiga waa la dilayda ku saabsan tiiba haddaba been noqotay markay tii been noqotay murugadii hore waxaa tegsiisay murugadan dambaa tegsiisay tii dambana marka waxay noqotay been markay been noqotay marka waxaa ka imanaysa farxad ayaa ka imanaysa farxad baa ka imanaysa calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye masaa'ibtu qudhooda ay iskhafiifiyaan oo marka waxa weye musiibaba musiibe lagu ilaawo waatay soomaalidu yahaan tuba tu ku ilow marka ixtimaalka ugu xun markaad ka soo qaaddo oo aad qadarto yacni waxa weeye haddii ixtimaalkaasi aanu kugu dhicin ugu xumi dee waxay noqonaysaa waad farxaysaa
ya yani waxa ihtimaalkaas hadduu kugu dhici lahaa waa ka xuman lahayd soo ma bal hadduu kaa baaqday ka warran de waxay keensanaysaa farxad marka murugadii inay kaa tagtaa meesha ka imanaysa waxaad haddaba ku daraysaa musiibadii waxaad khafiifin karto khafiifi wixii ku anfacaya inaad soo jiiddo ku dadaal wixii aad dhib daafici kartana iska daafac hadday tahay asbaab maadiye iyo hadday tahay asbaab macnawiya mid walba hadda maaragtaa weliba markaa naftana waxa weeye markaa tala saaradka iyo sabirka iyo waxa weeye ilaahay inaad tala saarato iyo inaad adkaysato ya taas ku dadaal maxaa lagu yidhi mu'miniinta in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuuna watarjuuna min allahi maa laa yarjuun yani mu'miniintu waa xanuunsanaya xanuun bay dareemayaan dhib bay dareemayaan dagaalkii waxa weeyaan yani waxa weeyaan dhibaata ka soo gaadhaysaa marka haddaa xanuunsanaysaan iyagu waa xanuunsanayaan gaaladuba waa xanuunsanaysaa way idinkala siman yihiin marka maxaa loo baahaya musaabara ya isbiruu wasaabiruu yani sabra gaaladana la sabirtamo ka sabir badiya yani marka hore sabir bay la imanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu maxay kordhisay yani markaa way sabrayaanoo idinkuna la sabir dhigto ka sabir badiya ya oo iyagu yana idinka sabir badan marka in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun sidaa u xanuunsanaysaan si la mid ay u xanuunsanayaan weliba dee waa gaalo waa idinka jilicsan yihiinoo adkaysinkiinoo kale ma yeelan karaan maxaa dheertiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaa allah ka rajaynaysaan waxayna iyagu ka rajaynayn allah marka musiibadii markaad ogaato in waxa weeye sawaab iyo ajar aad ku helayso oo rabbi agtiisa ajar aad kaga helayso dee waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa taas aad ku sabirto sabir inaad markaa la timaaddo ayay noqonaysa inaad ku sabirto ayaa markaa ka imanaysa marka yani ku sabra oo sidaa ku adkaysta oo ogaada markaysa markaa inuu ilaahay idin roon yahay oo dhibaatadii idinka khafiifiyey oo dhibta idinku dhacday ay markaa waxa weeye ayna darnayn ay sahlan tahay yani taas iyada ogaada macnuhu saas yadaa buu dhacayaa sidaas hadday dhacdo yani waxa weeye dhibtii idinkuma weynaanayso way khafiifaysaa marka waxa weeye wixii aa awoodi karaysaanna waa la imanaysaan marka waxaad ka helaysaa farxad iyo laabtii waasic noqota sawaabkana waad rajaynaysaa fi dunya waalaakhira oo sabirka caaqibadiisuna waa fiican yahay ina allaha maca asaabiriin hadduu allah kula jiro maxaa kaa maqan waxba kaama maqane allah baa la jirkaaga ahaaday oo weliba markaysa markaa xor wa arxamu araaximiin cidda la jirkaaga ahaatay waa ciddii cid naxariisata ciddii ugu raxmadda badnayd ya waa kaaga naxariis badan yahay aabbaha iyo hooyada cid walba waa kaaga naxariis badan yahay wa arxamu araaximiin raxmaddiisuna yani waxa weye wax walba waa ka ballaaratay wa raxmatii wasicat kulla shay raxmaddiisuna cadhadiisa waa ka haalib noqotay hadda maaragta 100 raxmadood buu abuura sifatu raxmana waa ku sifaysan yahay hadda maaragta marka sidaas aawadeed waxaad isku shidaysaa meesha ma taal umuurihii marka waa sahal markaad saa u eegto ya marka waxay noqonaysaa in sidaa lagu sabro ayay noqonaysaa ilaahayna waafajiyo sida khayrka badan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk